markale isku soo noqod wanaagsan su'aasheena maanta aktarkana ninka yaqaanee waa aktar looga haray dhanka shactirada nala wadaag haddii aad garanaysid magaciisa rasmiga ah waxuu ku bilaabanayaa filimkeena maanta gabar yar oo 10 jir ah kaasoo kaligeeda dhex fadhisa gurigeeda waxaana lagu magacaabaa gabadhaani Liza waxay tagtay qol kale iyadoo markaas xirxiranaysa boorsadeeda kadibna Liza waxay u timid hooyadeeda oo hurdaysa waxayna hooyadeedii ka kicisay hurdadii gabadhii Liza waxay u tagtay hooyadeeda iyadoo markaas ku tiri waqtiga waa uu dhamaaday maadaama ay saacadeed 9 subaxnimo runtii Liza waxay u socotay inay u tagto aabaheeda maxaa yeelay waalidkeeda mar hore ayay kala tageen ma jiro wax isfahna oo u dhaxeeya Liza iyo hooyadeeda iyagoo markaas murmaya Liza waxay had iyo jeer hooyadeeda u maleynaysay inaysan ahayn qof hooyo ah ama mas'uul ah sidaas daraadeed waxay rabtaa inay u tagto aabaheeda Liza hooyadeeda waxay sidoo kale ogaatay haddii ay gabadheeda ka tagtay inaysan wiligeed u soo laaban doonin dhabaantii Liza hooyadeeda waxay markasta ahayd mid markasta cabtooya waxayna cabi jirtay qamriga iyo xashiishka iyo sigaarka adiga balaayo oo dhan ayay cabi jirtay gabadheedana waxay dhacday dhaqan xumada hooyadeeda markaana waatana Liza waxayna sugaysaa hooyadeeda iyadoo markaas jansigar ku ciyaaraysa waxayna doonaysaa inay hooyadeeda aabaheed u geyso waqtigana waa 4tii galabnimo hooyadeedna markay u timid waxay ku dhahaysaa xilligaani xageed noo wada hurdo ayaa bixaysa iyadoo markaas seexanaysa intaas kadib labadoodii waa ay soo baxeen iyagoo markaas soo galay safarkoodii ay Liza aabaheed ugu tagi lahayd intii ay sii socdeen waxay joojiyeen gaarigii Liza hooyadeeda waxay siisay saacad Liza ayaa ku tiri saacadani soo saacadii hooyada ma ahan hooyadeeda ayaa ugu jawaabtay ha waan ogahay midaasi markaas ay Liza hooyadeeda ku tiri aniga mihi sida adiga oo kale taasoo ku cadeynaysa haddii aad balwad leedahay inuu qof walba ku dhibsanayo adigoo markaas aanan garanaynin wax aad ugu jawaabto wayna soo baxeen iyagoo markaas sii wata safarkoodii inkastoo la gaaray habeenkii Liza hooyadeeda waxay weydiisay waqtiga waxaan u sheegtay in waqtiga 2 saac oo habeenimo yahay isla markiiba cagtii baabuurka ay wateen ayaa qaraxday hortoodana waxa ka muuqatay gaarigeena wax u galay shirka isagoo markaas dhulka ku dhacay inkastoo ay iga badbaadeen balse gaariga waa uu jajabay mana ahan mid sii socon kara laakiin Liza hooyadeeda ayaa madaxa ka dhaawacantay dabadeedna Liza waxay wacdaa nambarka caawinta iyadoo markaas u sheegtay in gaarigoodii uu shil la kulmay kooxda caawinta ayaa u sheegay inay ambalaas iyo gurmud u soo diri doonaan dhawaan waa su'aale wadankeena ma leeyahay markii aad dhibaato la kulanto nambar gaaban oo haddii aad wacdo aad dareysid dad garab ku siiya ra'yigaaga qaybta hoose nagul wadaag Liza iyo hooyadeeda waxay ku sugan yihiin wadadaana cidlada oo uusan qofna joogin iyaga mooye waxaana halkaani ka da'aya roob tiro badan waxaana sidoo kale ka qaraxday cagtii gaariga ay wateen kadibna way ka soo degeen gaarigii markii uu roobkii istaagay iyagoo markaas dul yimid yeydii ay gaarigoodii ku dhufteen markii ay shilka galayeen waxayna Liza hooyadeeda taabanaysaa yeydii iyadoo markaas ogaanaysa inay ku jirto naf qariiba waxayna soo qaadeen yeydii iyagoo markaas wadada keenay inkastoo Liza ay markaas aad u cabsanayso Liza hooyadeeda waxay ku tiri waa inaan gaariga fuulnaa kadibna waxay soo fuuleen gaarigii waxayna ku dhex jiraan gaariga iyagoo markaas uu da'aya roob tiro badan muddo kadib gaari ayaa yimid halkii ay joogeen kaasoo doonaya inuu jiido gaarigooda dabadeedna Liza waxay fiirinaysaa dhinacii u yaalay meedkii yeyda waxayna arkaysaa inaysan yeydii oolin meeshii ay hadaydii taallay inay aad u cabsatay ayay hooyadeeda ku tiri soo ma laga yaabay inay nooshahay yeydii waxayna ku tiri hooyadeeda taas uma malaynayo aniga kadibna waxaa dhankooda soo aaday oo u yimid ninkii waday gaarigii u yimid iyaga waxa uuna ka fiirinayaa daaqada isagoo markaas ku dhahaya soo daga waxaan isku dayi doonaa inaan nii hagaajiyo gaariga waxayna ka soo qaateen alaabtoodii iyagoo markaas dhigtay gaarigii ninkii kadibna ninkii wax uu fiirinayaa in qaybta hore ee gaariga ay waxyeelo soo gaareen waxa uuna ku yiri waa inaan hagaajiyo qaybta hore ee baabuurka haddii aan qaybta hore hagaajiyo waxaan jiidi karaa gaarigiina intaas kadib wax uu bilaabay inuu hagaajiyo gaarigoodii waxayna qayli ka dareemeen keynta dhexdeeda iyagoo markaasi cabsanaya dabadeedna Liza waxay ogaanaysaa inaysan taleefankeedii gacanta uusan ugu jirin dhabaantii waxay si qalad ugu ritay taleefankeedii alaabtii ay hadaydii saaraysay gaarigii ninkii Liza hooyadeeda waxay la xanuunsanaysaa dhaawacii soo gaaray waxayna gabadheeda ku tiri orod taleefankaada noo soo qaad laakiin Liza ma aysan doonin inay gaarigii ka soo degto kaligeeda balse waa inay fuliso amarka hooyadeeda waxayna ka soo baxday gaariga iyadoo markaasi soo degtay waxayna u timid gaarigii waxayna isku dayaysaa inay furto daaqada laakiin albaabkii gaarigii ayaa loo ku xirnaa markaana waxay dalawarkii oo sameynaya gaarigooda ku tiri waxaan u baahanahay furaha gaariga waxa uuna ku yiri furayaasha ma hayo maxaa yeelay waxaan ugu soo tagay goobtii shaqada way soo baxday Liza iyadoo markaas dhulka ku arkaysa dhiig daadsan hore ayay u soo socotay si u soo hubiso
laakiin waxay aragtay in meydkii yeyda uu yaalo meel aan iyada u dheerayn. hadda Liisa waxay bilowday inay dib u xasuusato waqtigii hore ee nolosheeda, waxayna dul timid hooyadeeda oo markaasi qamri isku dishay. waxayna soo qaadatay midi waxayna ku tiri, waxa iga haysta inaan ku dilo, maxaa yeelay uma baahni hooyo adigoo kale ah. kadibna Liisa gadaasheeda waxaa ka soo muuqday wax la yaab leh. maxay yihiin waxaan? nala soco, gadaal ayaad ka ogaan doontaa. intaas kadib Liisa waxay ku soo noqotay baabuurkii ay saarneed hooyadeeda, waxayna hooyadeeda u sheegtay inuu gaarigii xiran yahay. waxayna sidoo kale u sheegtay in yeydii ugu dambeeyay ay dhimatay iyadoo markaasi la cunay. kadibna hooyadeeda waxay u sheegtay inay jiraan xayawaano badan oo noocaasi ah kuwaasoo cuna xayawaanada kale. dhan kale dawarkii gaariga hagaajinaya wax uu maqlayaa dhawaq aad u dahsoon, wax uuna soo qabtay tooshkiisa isagoo markaasi ku qabtay, balse waxa uu arki waayey. dhanka kale Liisa iyo hooyadeeda waxay sugayaan imaashaha ambalaasta, maadaama Liisa hooyadeeda uu soo gaaray dhaawac iska yar. iyadoo ay taasi jirto waxaa ku soo daaday ambalaastii. dabeedna Liisa hooyadeeda waxay la hadashay darawalkii iyadoo ku tiri, maxaa dhacay, maan halkaani ka tagno? laakiin wax jawaaba ma aysan ka helin darawalkii. kadibna Liisa hooyadeeda waxay ka soo degtay gaarigii si u soo hubiso waxa ku dhacay darawalkii. waxayna gaariga hoostiisa ku aragtay tooshkii oo yaala, darawalkiina uusan halkaasi joogin. waxayna hooyadii darawalkii ka raadinaysa agaarka halkaasi, laakiin waa ay soo waysay. isla markiiba gacantii darawalka ayaa ku soo duldhacday gaarigii ay Liisa saarneed. labadooduba markii ay arkeen aad ay u cabsadeen. Liisa hooyadeeda ayaa sidoo kale ku soo laabatay gaarigii. kadibna waxaan aragnaa darawalkii oo weli nool, kaasoo soo aaday dhankii gaarigiisa. waxa uuna furay albaabka gaarigiisa isagoo markaas isticmaalaya furayaashiisa. Liisa iyo hooyadeeda waxay fiirinayaan darawalkii. hadda waxaan aragnaa bahalkii cunaya darawalkii markii ugu horreysay, isagoo markaasi daba socda darawalkii. kadibna bahalkii ayaa dilay darawalkii isagoo markaasi ku hoos jiidayay gaarigii. Liisa iyo hooyadeeda waxay ku jiraan gaariga iyagoo markaasi aad u cabsanaya. hadda gabadhii Liisa aad ay u cabsanaysaa, balse hooyadeeda ayaa ku tiri, cabsanin, aniga ayaa kula jooga, mana jirta cid waxyeelo ku gaarsiin karta. gabadhii yareed ee Liisa waxay ku tiri hooyadeeda, aniga ma rabo inaad dhinto. hooyadeedna waxay ku tiri, isdaji gabadhaydii. albaabka uu darawalkii furayna waa uu furan yahay. waxayna damceen inay soo qaataan furayaashii si ay halkaan ugu dhaqaajiyaan, laakiin waxaa ka tambadisay cabsidii, iyagoo markaasi ka cabsanaya haddii ay bannaan ku soo baxaan inuu bahalkii cuno. balse bahalkii wuxushka ayaa maqlay hadalkooda, isagoo markaasi soo weeraray. wax uuna qabsaday Liisa hooyadeeda. nasiib wanaag isla markiiba waxaa timid ambalaastii. bahalkeena waxa uu ka cararay iftiinkii gaariga ee ambalaasta ahaa, waxaana u yimid ninkii wadiyay ambalaasta. waxayna halkaasi ka qaadeen Liisa hooyadeeda, iyadoo markaasi uu dhaawac kale u geystay bahalkii. waxayna ambalaastii soo geliyeen Liisa hooyadeeda, iyadoo markaas uu bahalkii dhaawac xun ka soo gaarsiiyey qoorta. waxaan aragnaa naag askariyadda oo la socotay ambalaasta, taasoo dhex wareegaysa kaynta, iyadoo markaasi baaraysa waxa meeshaani ka jira. waxaana naagtii raadiyaha looga sheegay inuu halkaani joogo bahal dadcun ah, waana inay halkaani ka soo dhaqaajiyaan sida ugu dhaqsiyaha badan. intaas kadib naagtii waxay ku soo laabatay ambalaastii. kadibna waxaa muraayadda ambalaasta ku soo dhacay meydkii ninkii caawinayay Liisa iyo hooyadeeda. markaana aad ay u cabsanayaan saddexdoodii. bahalkiina waxa uu saaran yahay ambalaasta dusheeda. hadda Liisa iyo hooyadeeda waxay fadhiyaan kuraasta dambe, halka naagtiina ay saaran tahay kursiga hore. Liisa hooyadeeda waxay gacanta u taagaysaa naagtii maadaama ay fadhiso kursiga hore, laakiin bahalkii ayaa sidoo kale soo weeraray, isagoo markaas halkaasi ka jiitay naagtii. wax uuna halkaasi kala baxay naagtii. Liisa iyo hooyadeeda ayaa markaani ambalaastii ku soo haray, iyagoo markaasi wadnaha farta ku haya. Liisa hooyadeeda ayaa markaani fuushay kursiga hore ee ambalaasta, iyadoo markaasi wadaysa gaarigii. waxayna dhaqaajisay gaarigii. intii ay gaarigii sii waday waxaa ku soo dhacay bahalkii, isagoo markaasi dibagediyey gaarigii. waxaana isla markiiba shil galay gaarigii, taasoo keentay inaysan weli ka bixin kayntii. sidaasi daraaddeed labadooduba si xun ayay u dhaawacmeen. markii Liisa hooyadeeda ay aragtay gabadheeda oo dhaawacantay, aad bay u niyad jabtay. markaas ayay tiri Liisa hooyadeeda, waxaad tahay noloshayda, waxaadna tahay dhiiggayga iyo xigaalkayga, mana ku ogolaan doono in adiga lagu waxyeeleeyo. waxaan maqli jiray waalid intuu ilmihiis u qabo ilmihiis uma qabaan. waxayna isku dayaysaa Liisa hooyadeeda inay caawinaad weydiisato raadiyaha ambalaasta, laakiin raadiyihii ma uusan shaqaynaynin. laakiin intii ay halkaasi joogeen waxa u yimid bahalkii. Liisa hooyadeeda ayaa inta uusan soo gaarin bahalkii ku qabatay tooshkii ay haysatay. inkastoo bahalkaani uu saad u neceb yahay iftiinka, waa uun isiga tagay halkaasi. Liisa iyo hooyadeeda waxay ogaadeen inuu bahalkaani uu ka baqaayo iftiinka. hadda Liisa hooyadeeda waxay fahantay wax walba, waxayna qorsheynaysaa sida ugu macquulsan inay halkaan ugu baxsadaan. haddii ay halkaani sii joogaan waxa ugaarsan doona oo cuni doona bahalkii. dabeedna Liisa hooyadeeda ayaa u sheegtay gabadheeda inay qorsheedu u yahay inay halkaani ka baxsadaan,
bannaanka ayayna u bixi doonaan iyagoo markaas sheedanaya shumac holaca si ay u badbaadaan bahalkii. Liisa hooyadeeda iyadoo hadalkii sii wadata ayay tiri waxaan qaadan doonaa dabkaani si aan u dilo bahalkaani. Liisa ayaa markaana ku tiri maya ha samaynin midaasi. Kadibna waxay ku tiri waxaan shidi doonaa shumacaani man ii soo dhowaan kara maxaa yeelay wax uu bahalkaani ka baqayaa iftiinka. Waxayna hooyadaani doonaysaa inay gabadheeda badbaadiso iyadoo markaas nafteeda u huraysa. Markaana Liisa hooyadeeda waxay ka mamnuucday inay gabadheeda bannaanka u soo baxdo. waxayna ku tiri hooyadii gabadheeda waan baxayaa. Waxayna hooyadii u soo baxday bannaanka iyadoo markaas soo qaadatay iftiinkii. markii ay xoogaa ka soo fogaatay ambalaastii ayay si ula kaca u damisay dabkii sababta waxay ogtahay haddii aysan dabkaani daminin inaysan arkaynin bahalkii. markaas ay ku tiri gabadheeda Liisa carar. kadibna bahalkii wuxuushka ayaa hooyadii soo weeraray isagoo markaasi dhaawacay. intii uu hooyadii cunayay ayay gadaal ugu timid gabadhii Liisa ahayd iyadoo markaasi garaacaysa. dhabaantii Liisa ma aysan ka cararin hooyadeeda waxay isku dayaysaa inay badbaadiso hooyadeeda laakiin Liisa waxaa ku soo jeestay bahalkii laakiin waxay wejiga ugu qabtay iftiinkii. markii uu bahalkii u gasan waayay iftiinkii ayuu halkaas isiga tagay. kadibna Liisa waxay u timid hooyadeeda iyadoo markaas uu zaad cunay bahalkii naftan ay ku daba yar tahay iyadoo markaas ugu dambeyntii hooyadeeda ay dhimatay. markaana Liisa waxay dareemaysaa in bahalkii uu joogo agagaarkeeda. markaana waxay ku soo noqotay ambalaastii waxayna halkaasi ka heshay dhalo iyo jansiigar. hadda Liisa waxay damacsan tahay qorsho iyadoo markaas uu bahalkii ambalaas ugu soo galay waxayna u soo baxday bannaanka. waxaana markaan hortaagan bahalkii iyadoo markaas aanan ka cabsanayn bahalkii waxaana soo weeraray bahalkii balse waxay hal mar ku furtay dabkii iyadoo markaasi dhammaantiisu gubtay. bahalkiina waxa uu ku dhintay halkaasi. Liisa waxay hadda waysay hooyadeeda waxayna dib u xasuusanaysaa qaabkii wanaagsanaa oo ay ula soo nooleed hooyadeeda inkastoo ay cabtooy iska ahayd. waxayna markasta wehel ka dhigan jirtay hooyadeeda. waalidka si kastaba ha xumaadee waa midka kaliya oo ku huri kara naftiisa. subaxdii xigtay waatana gabadhii Liisa ahayd waxayna dhex socotaa kayntii iyadoo ugu dambeyntii ka soo dhex baxday kayntii. waxaana halkaasi ku dhammaaday filimkii inkastoo filimkeena maanta uu mugdi u badnaa balse waxa uu xambaarsan yahay micno fara badan. waxaana lagu magacaabaa filimkani The Monster isagoo markaasi soo baxay sanadii 2016. maanta muuqaalkeena intaas ayuu ku egyahay. intaan muuqaalkani mid ka xiiso badan kulmi doono sidaas iyo nabadiino.